waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha inay ila xasuusiyo sheeko nooga sheekeeyay isagu inta aanu musharaxa noqonin waxa gudoomiyaha xisbiga ay maalin isugu nimidnay bilguule waxaan jeclaan lahaa waliba iga sii codsiyo kale in qolada xoghayntu ay qisada gaarsiiyaan madaxweynaha uu isagu nooga sheekeeyay waliba ahayd qiso waaqici oo dhaba uu isagu si dareen la nooga sheekeeyay ayaa maalin waxaan isugu nimidnay bilguule madaxweynaha isagoo musharaxa xisbiga la kulmay dad iyagii la isugu yeeray bulshadii ayaa wuxuu nooga sheekeeyay qiso ka dhacday isaga bilguule ku dhacday oo ah qiso dareen leh oo tan anagu maanta u taaganahay tu lamid ah wuxuu yiri anigoo safar ka imiday oo Itoobiya ku soo dhaawacmay oo ka soo lugeeyay herar ayaan soo lugeeyay buu bilguule anigoo dhaawac ah oo aan socon karin oo laba nin oo u dhashay deegaankuna ay sidaan ayaan bilguule soo lugeeyay buu deegaankayga maan tagi karin buu waxa ka socday dagaalo ehelkaygana leema geen karin oo dhaawac baan ahaa oo waxaan u baqay naftayda in dhaawac culus soo gaaro saadaradeed baan yidhi buu bilguule ii geeya dabadeetana waxaan imiday buu bilguule la soo qaaday ilaa bilguule waa leeyla soo lugeynayay wuxuu ilaa intaan herar ka soo lugeynayay bilguule soo socday afkayga jidin maan marin buu biyo igama daadegin anigoo dhaawac iyo gaajo iyo luun isku ka darsamay ayaa bilguule ardaa la soo dul jiifiyay buu ardaaga waxa lahaa islaamnimka inay ahayd ay isuu noo sheegay Jamaad Ismaaciil odayga caga dablay oo lahaay dabeetana Jamaad Ismaaciil ba ardaageedii la soo dul jiifiyay buu ugu yaraan 5 cisho af waxba maan gelin buu anoo gaajadii iyo dhaawac isku ka darsamay ayaa ardaaga Jamaad Ismaaciil soo dul jiifsaday buu dabadeetana anoo isla talo ma dhaawacaad u dhiman doontaa mise gaajadaad u dhiman doontaa oo bilguulana laga wada qaxay oo cid joogin oo warwarayo isla talo ma dhaawacaad u dhiman mise waxaad u dhiman doontaa gaajada ayaa Jamaad Ismaaciil oo markaa Allah u naxariistay caga dable uu xabad roodiyo uga keenay Hargeysa oo kala soo qaxay Hargeysa uga keenay oo xabada roodida 8 ciyaal leh isla u qaybi ayaa la yiri Muuse Biixi ardaagaaga dul jiifa oo gaajo iyo dhaawac bay soo dul jiifa dabeetana waxaan ku dhibay tir ciyaalkii aan ku yiri 8 ciyaal ahaayeen markaa lahaa ee jabkan roodidaan dii gogoynaya iyo waxaan isu qiimeeyay bay tir ninka dhaawac iyo gaajada la dul jiifa ardaagayga iyo maadsiisa ciyaalkaygii baan ku dhibay tir abtigiin ba Hargeysa ka imanayo idin keenay roodiye ordo kaga hortaga gaari malaa imanaya markaas oo Hargeysa ka imanayay dabeetana gaarigii bay ku wada yaaceen beet gaajo iyo luunka ay dirtii bay gaariga Hargeysa ka imanay wada yaaceen beet dabeetana Muuse Biixi baan xabadii roodida 8 ciyaal ka qadiyay ee ka gaajoonayay ee aan ilaa xalay waxba ka siinin ayaan isaga ku qabtabay tiroon afku galiyay dabeetana markaasaan wuxuu yiri isagu markii aan xabadii roodida arkay intaan layba siinin aan arkin la soo wado ayaan si naftu way ku soo noqotay oo ma dhaawici ka bogsoon kacay marka waxaan uga socdaa mudan madaxweyne islaantaas saxaabada roodida 8 ciyaal kaaga qadisay ee habeenka 8 ciyaal door bidayna gaajo ku seexiso ee adiga ku siisa ayaa ciyaalkeeda xidhin kuwii ay gaajada ku seexisay aad maanta jeelasha ku jira kuwaas aan afis kaaga dalbanay kaaga sii darana kuwa gaajada habeenka ku seexday ciyaalkoodii maanta way gaajisay cid u shaqaysamayso waa 3 qodob isriyaal marka de hadaad adigu maanta dhar ku seexanayso kuwii habeenka gaajada lagu qadiyay mudane madaxweyne waxaan ka codsanayna in kuwa dhalana si gaajoonayaan caaw iyaguna jeelasha dhexdooda ku gaajoonayaan afis madaxweynaha kaaga dalbanayna